kulanti wacan asxaabey kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay bal waxaan eegi doonaa waxyaabaha ay wargeysada caalamku ay ka qoreen saaxadda kubadda cagta kulmadii maanta la ciyaaray Manchester United oo xilli dambe baxsatay Neymar iyo Messi oo maanta ka qatanaa xasuuqii PSG Juventus oo wadada guusha kusoo laabatay waxyaabo laga diiwaan galiyay kulamadii maanta iyo wararka kale soo baxaya muuqaalkeena intaana bilaabin saaxiibayaal like Sara sina share gareeysa asxaabadan ay u gaadho haddii ay tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambaleel kana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddii ku bilowno Manchester United runtii caawa xilli dambe ay baxsatay waana geedii sheegay lahaa kulan adag ma noqonaya waayo waxaan ka soo dheehanay Fulham iyo waliba formka ay ku socoto in laftigeedu guuldaradana caawa soo gaadhay waxay ka lumisay in kaalinta lixaad ay timaado Liverpool ay dhibca noqoto ayaa fursadaasi ayaa ka luntay maahane laftigeedu Fulham inay dagaalanto ay doonisay United guushan gool weyn bay uga dhigan tahay in mar dambe haddii ay kulanka dambe haddii ay badisana runtii Tottenham ay kaalinta ku qabsan doontaa oo min dhibco ay yeelan doonaan mistaqaalatan ay labada kooxood booda yeelan doonaan United kulan weyn ayuu ahaa inay maanta ay guuleysato runtii waa soo dhawaaday laftigeeduba kulan adag oo maanta lafaha la iska garaacay ayuu kulankan ahaa wale Manchester United fursad ay ku haysata amaba nasiib ay u lahayd in Mitrovic kulankan uu ka maqnaado wariyahanka kooxda Fulham runtiina ah in gooldhaliyaha in hogaaminayaba in kooxda Fulham oo gooldhaliyaha kaliya haysato kulankan inuu ka maqnaaba fursad ayuu tahay kooxdan iyo waa saddex dhibcood maanta qaatay Erikson ayaa goolkiisa koobaad ee kooxda Manchester United ku tuurtay ee Premier League iyo waliba kulankan caawin iyo waliba wuxuu isku darsaday iyo goolkii dambe ay kooxda United ay ku baxsanaysay Alexander Garnacho runtii fariimo waa badin xadiga badan baa fariimo diraya oo xulkooda ay ka tageen daayirkana waxa uu ka mid yahay xadigaha laga tagay waliba xulka Argentine ayaa ka tagay waxa uu leeyahay waa ka qoomay doonta waka kooxda weyn ee Manchester United wakaasi la baxsanay waliba kulan weyn oo Premier League in Fulham inaad ka badisa maanta ma fududa waayo kooxaha adag bay ku jirtaa waliba formkeeda sanadkan aad buu fiican yahay waxaan ogeyn in Manchester City ay soo dhibtay waxaan ogeyn in sidoo kale Liverpool ay dhibtay inkastoo ay xilli dambe sida kulankan oo kale ay record ka baxsatay Manchester City wala Manchester waa dhibayaan United iyo waliba City xilli dambe ay kooxdan madax xanuun bay kornay inkastoo Liverpool iyo 2-2 ay la gashay soo wareerinaysa way formkeedu waa fiican yahay kulankan United ay badisana gool weyn ayuu tahay Alexander Garnacho ayaa la baxsaday fariin baan u diray xulkiisa Argentine wakaasi daqiiqadii 9aad ayuu gool ku dhaliyay kooxda Manchester United sidoo kale 2017 waxa kooxdan Man United la baxsaday Cristiano Ronaldo isla waliba kooxdan Fulham ay goolka badiska xilligoona kale ka dhaliyay 2022 saniya Samaynaya Alexander Garnacho ay isaguna kooxdan la baxsaday haye kulankii hore maxay ahayd waxay dabaaldigi Cristiano Ronaldo markana dabaaldigi Messi ninkan uu ka soo jeedo Argentine ayuu maanta ku turto markii goolka Real Madrid uu ka dhaliyay Lionel Messi garanka la baxay waa kaasi Alexander Garnacho sidii Messi ayuu maanta u dabaaldigay runtii ninkan labada ciyaartii xirfadda ugu waaweynba waxba ka baranaya oo labadoodu waa ku daynaya ninkan xulkiisina waa kaasi waa laga soo reebay Man United kulan weyn ayuu tahay in runtii ay guuleysato Juventus ayaduna wadada guusha ku soo laabatay 3-0 ay ku garaacday kooxdii Lazio runtii guushana gool weyn ay uga dhigan tahay in Juventus ay ka badiso kooxdan iyo wakaasi way soo weedaarisay Juventus oo lixaad ku jirtay in kaalkay joogta guushan ay Lazio ka gaadhay kaalintii saddexaad waa kala wareegtay kooxda Lazio waxay imika maraysaa Juventus kaalintii saddexaad bay fadhidaa halka Lazio oo dhibca ka horeysay Juventus la soo dhaafiyay 2 dhibcood bay ka horeysay wakaasi makiidiba hal dhibic laga horeeyaa Juventus waa kaalintii saddexaad ku jirta inkastoo ay Milan maanta basina labaad bay fadhidaa Napoli yaa ka furfuray 41 ayaa lagu hayayo Juventus waa soo dhawaato 9 dhibcood ayaaba hogaanka laga hayaa runtii Juventus waxa la baxsaday Kane oo 2 gool u dhaliyay kooxdan halka Milik uu daqiiqadii 89aad u gool ku dhaliyay Lazio gool muhiim ah ay Juventus
ay ka gaadhay maanta. Sidoo kale AC Milan Leo ayaa daqiiqadii labaad gool koowaad ugu furfuray waayo Fiorentina ay la lahayd AC Milan labaad bay ku jirtaayo laftigeedaba sanadkii labaad horyaalka Serie A Hungary baa ka jira. Leo daqiiqadii labaad markuu dhaliyo dabaaldegii Cristiano Ronaldo ayuu sugna maanta ku turtay walaal ninkani daayirada saameyn buu ku leeyahay saameyn togan ayuu ku leeyahay dhalinyarada waxaan arkayna dabaaldegiisana cusub oo meel walba ka dhacay wakaas Leo Rafael Leo ay isku Portuguese yihiin Cristiano Ronaldo ayaa wakaasi dabaaldegiisi isna maanta sameynayay Milinkovic oo Fiorentina ay goolkiisa ka dhalay daqiiqadii 90 ayaa loo wada baxsanayay maanta daqiiqadii 90 ay goolkiisa ka dhaliyay runtii AC Milan ay sidaas 2-1 Fiorentina kaga adkaatay runtii kulankii kale weynaa jiray Aston Villa iyo Brighton haye Aston Villa waa soo dhawaatayba kaalmii hoos waa soo dalacday halkii hore ha uga imanin Brighton in laga badiyaa waa adag tahay anaa kule Brighton in arkanay waxay sameeyeen kooxaha waaweyn dhibaysay ayaaba 2-1 ay Aston Villa ka basay runtii Unai Emery kooxdii waa badbaadiyay 6 dhibcood oo qaatay waliba 2 kooxood oo adag oo ka qaadanaya wax weyn ay AC Milan ay Aston Villa uga dhigan tahay kaalinta 12aad ay imka fadhida balaynu qiimeeno hadii Unai Emery aanu yimaadeen oo 6 dhibcood Aston Villa ay lumin lahayd halkii maanta jooglay 18 dhibcood bay leedahay 6 ka jar waxay tigaysaa 12 dhibcood waxay kaalinta 18aad ay tigleed oo Nottingham Forest baa 16 bale 18aad ay fadhiileed wataasi waa soo dhawaatay imka 12 bay fadhidaa Manchester United oo 5aad fadhida iyo Brighton oo 7aad fadhida ay ka guuleystay sidoo kale gooldarada Brighton waxay farxad weyn tahay Liverpool oo hadii ay Brighton badin lahayd kaalinta 6aad waa kala soo wareegi lahayd oo Liverpool 22 leh Brighton 21 bay ay leedahay gooldarada soo gaadhay waxa ka dhigan tahay in kaalinta 7aad ay sii fadhiyo doonto ay Liverpool wali ay ka horeyn doonto ay kaalinta 6aad ay wali sii joogi doonto xasuuqi maanta ay geysatay casarkii kulankii ay PSG ciyaarisay runtii 5-0 ay ku garaaceen horyaalka League One ciyaarayeen Mbappe ayaa ku furfay daqiiqadii 11aad Solar Kobe Conte Hakimi Sanchez Ronaldo Sanchez Hugo Ekitike runtii 5 ciyaartii ayaa goolasha kala qaybsatay PSG xilli aan Lionel Messi oo daqiiqadii 5 la saaray iyo Neymar aanay wax goolaba dhalin maanta waa ka qadanayeen goolasha ay xidiga kooxda PSG ay ku maadsadeen oo 5-0 gool xasuuq ay geysteen sidoo kale Inter ayaa iyaduna adkaatay oo 3-2 ay kooxda Atlanta oo laftigeedaba aan la yareysan karin runtii iyaduna ka adkaatay AC Milan Inter Milan laftigeedaba waxay haata isku dhibcay yihiin Lazio oo maanta loo qabto 5aad ay iyadoo soo fadhida oo farqiga kala sareynta goolasha ayaa laga hayaa kooxda Inter Height runtii Dzeko ee kooxdani badbaadiyay inkastoo goolka 3aadna ay Atlanta iska dhalisay oo Atlanta ay goolka iska dhalisay runtii waxa la wada baxsanaya xilli dambe Bolomino ayaa goolka 3aad iska dhaliyay runtii Atlanta laftigeedaba lama yareysan karo waa kooxaydu 17 meel leedahay oo Inter waa ka horeysay waliba farqiga goolasha kor Inter 7aad bay fadhiday Roma ayaduna maanta wale horyaalka Serie A runtii xiiso weyn Mourinho ayaaba casaan qaatay xilli hore maanta gool iyo gool baa caawil la galay kooxdii Roma ahayd Mourinho mar kale ay xirfadiisa qaadanaya inkastoo daqiiqadii 9aad 55 baa laga horeeyay Torino ay ka horeysay Roma Belotti ay daqiiqadii 9aad record laga qabtay isla 90kii ay Matic oo goolka dhaliyay oo gool iyo gool ciyaarta ku soo dhamaatay xilli casaan loo taagay tobra kooxdani Roma Mourinho oo mar kale qaadanaya ninkani casaan deyn maayo mar walba casaanka waa daldalanaya kulankanna wakaasi kaas ayuu kala baxo casaan ayaa loogu abaalguday waraysi uu bixiyay Karim Benzema ayaa waxa uu ku sheegay in wali aanu saaxiibkiisii ee kooxda Real Madrid ay soo wada joogeen muddada dheer ee Cristiano Ronaldo aanu wali wax hambalyo ugu soo dirin abaalmarinta Ballon d'Or ee sanadkan farta laga saaray Karim Benzema waxa la weydiiyay su'aal ahayd Benzema saaxiibka ama Cristiano Ronaldo fariin ma ku soo diray maya buu yiraahday isagoo waliba kaba fikirinba wali wax fariin oo hambalyo kama hayo waxa leeyahay Cristiano Ronaldo markii Benzema
uu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or xiriirka waa u jaray oo wax lama soo xiriirin ba haba yaraatay inuu soo hambaliyay iska daayay. Benzema ayaa saas sheegay inaanu weli wax hambaliya aanu kayn saaxiibkiisii Real Madrid ee muddo 9 sanadood ah ee halkaas waqtiga ku soo wada qaateen ay koob fara badan champion ha noqoto Liga ha noqoto adigu koob fara badan ay ku soo wada guuleysteen. sidana waxa sheegay Benzema uu wax fariina oo uu soo gudbiyay ama hambaliya oo uu soo diray Cristiano Ronaldo ma jirto. runtii warka kale soo baxaya ay waxay sheegayaan in maalqabeenka 8aad ee dunidu imika uu ku soo biiray baasiga kooxdan Liverpool mulkiilayaasha reer Mareykan ay sheegeen in ay iibinayaan kooxdan. haddaba ganacsadaha u dhashay India ee lagu magacaabo Mukesh Ambani oo hantidiisa lagu qiyaasay 90 bilyan ayaa imika waxa ku jira mulkiilayaasha aad ka xiiseynaya Liverpool ee leeyahay kaalmo hore ayuu kaga jira oo waxa uu doonayaa in kooxdan Liverpool uu iibsado wala Liverpool oo mulkiilan hesha in kala sareynta kooxaha ugu qanisan meel fiican ay iman doonto. ونك سجاش برين رهندي اللي كوحة كلي أيولي هاي أي حتى على حسينيو وكاسي كوح ليفربول ولي والس كوحيا أردنا عمر دعن واللي ما كل إبسن شمبلين أي قيمين تنسي مرسا ملكي لهنا آد بلي وحلي واقصو بيرين مركورني كتب نادي الدنيا ده هي يمكن نك استياد أي مرسا حد جرى فرانسيس كيليان مبابي أي واحد الشاعي يعني حديقة ومدة دير وكديني ايرانتيسي هول مودلka u ahaa waxa la weydiiyay su'aasha ahayd midkee baad ku dayata Cristiano Ronaldo iyo waliba saaxiibkiisa hadda in kooxda PSG kala dirsan ee sanadkani ay wada shaqeynta weyn ka dhaxaysay golasha faraha badan iska caawiyay ee sanadkan aad ugu cadreynaya Mbappe oo su'aashaasi la weydiiyay xadiga ku daydo labadani good ayaa isagoo dhinacba eegin ay waxa ku jawaabay Cristiano Ronaldo ninkan yaraantiida ku deyn jiray waxaan u arkay buu dhahday inuu yahay nin weerar oo aan isku qaab ciyaaraynahay sidaas ayaan taageer jiray waxa uu yaraantiida waxaan kuriyoon jiray Cristiano Ronaldo saaxiibkiis Lionel Messi waxa uu taagay ninkan kuma deyn jirin maantana ama waxa ciyaareedkana wada shaqeyn weyn ayaa ka dhaxaysa Lionel Messi iyo waliba Kylian Mbappe kooxdan PSG oo gool fara badan ay iska caawiyeen waxaan uu taagan yahay Kylian Mbappe xidigan ku deyn jiray waa Cristiano Ronaldo. kooxda Manchester United tababarkeeda Ten Hag waxa uu sheegay inayna amaah ku direynin Donny van de Beek oo amaah baa lagu dirayaa lahaa inkastoo fursadiisa sanadkan uu muuqdo mid aan ka faa'iideysanayn oo aan dadaal badan aan muujinayn waxa uu si cad u sheegay amaba ninkan van de Beek waa tababaraha Manchester United oo hadlaya Ten Hag waxa uu sheegay van de Beek waa is cadeyn doona in kooxdan uu qalmo inuu ciyaaro amaba albaabkan tustoona oo waa iska bixi doona uu taagan wax amaah iyo lagu diray ma jirto ama waa is cadeyn ama kooxda Man United waa ka tagi doona ayuu taagan yahay Ten Hag. Tababare Thomas Tuchel ayaa leeyahay shaqadii waa ku soo laaban kara waxaana aad loo xidhnay oo leeyahay waa tababaraha ugu cadcad ee kooxda Atletico Madrid in ka bedeli kara Diego Simeone hadii kooxdaasi ay go'aansato inay fasaxdo Diego Simeone oo sanadkan aad kooxda la dhacay oo ku deysay in ay ku guuleystaan horyaalka La Liga oo aad ba lagu fogaaday championka weyn warkeeda Europa League sagada Europa League xadaa waa waayeen inta championka ka soo hareen xaaladdu sanadkan waa alowsaal hadii kooxdana ay go'aansato inay bedesho Diego Simeone tababara u cadcad waxa leeyahay shaqadan la wareegi kara oo Thomas Tuchel ninka falsafadiisu waa ku soo baxaysa kooxdani Tuchel waa nin daafaceed kooxdana Simeone waxa uu halkan ku carbiya askar hadiga maaha kooxdana falsafadiisu waa falsafad daafaceed hadii Thomas Tuchel uu yimaado Atletico Madrid mar kale wayna wareerin doona Chelsea wayna 6 bilood uu qaaday koob halkana wax weyn ayuu ka sameyn doonaa saddex garsoore oo haweenaya ayaa waxay noqdeen saddexda garsoore ugu horeeyay ee kubadda cagta koobka adduunka daadihin doona saddexda garsoore ee la kiraado Stefania Frabart iyo waliba Salima Bukansanga iyo waliba Yohimi Yamshita waxay noqdeen ama noqon doonaan garsoorayaashii ugu horeeyay ee haweeney ah ee dhexdhexaadiya tartanka koobka adduunka waliba ragga sanadkan taariikhna ay sameyn doonaan waliba qadar ay ku daadiin doonaan saddexdan haweeney ayaa loo soo xushay oo wadamo kala duwan ka soo jeeda China, Asia, Europe
kasoo kala jeeda. Taariikh baan samayn doonaa noqdaan haweeneydii ugu horeysay ee daadihiisa kubadda cagta ragga ee weliba koobka adduunka. Wararkeena ciyaaruhu waa naga intaas saaxiibayaal, intaynu kulmi doono wararkeena kale. Wassalaamu calaykum.